السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق waa دكتور محمود محمد. haddaa baxdo farmasi aad tagta aad dhahdo waxaa u baahanahay kaniiniga oo bariis waa inay laba kaniini midkood ku soo siiyaan waa prednisolone ama dexamethasone. waxaa rabaa daqiiqadooyin yar inaa idinkaga wacyigeliyo. labadooda waxay ka tirsan yihiin group lagu magacaabo steroids. groupkan waxaa lagu daaweeyaa cudurro fara badan oo kala duwan, laakiin waxaa kusoo koobi doonaa laba noocood. waa imaa in lagu daaweeyo cudurrada ku dhaca difaaca jirka lagu magacaabo autoimmune disease sida rheumatismka, cudurrada ku dhaca mindhiciraha. waa imaa in lagu daaweeyaa waxyaabaha la xiriira allergiga meelo fara badan oo kaaga dhici kara. waxaa ka mid ah sanbabaha, dadka neefta qaba, waxaa ka mid ah dadka sanboorka qaba. waa imaa in xasaasiyad loo isticmaalaa, waa imaa in loo isticmaalaa cudurrada ku dhaca difaaca jirka. qof kaniini oo bariis soo gatay haddaa aragto waxaa weydiisaa bis maxaa rabtaa inaa u isticmaashto kaniiniga. wuxuu kugu jawaabaa waxaa rabaa inaa u isticmaalo inaa isku cayiriyo. caafimaadka meel ay ugu qoran tahay ma jirto. steroids waxaa loo isticmaalaa in la isku cayiriyo. maxaa waaye marka xiriirka ka dhexeeya oo bariis iyo cayilka? maxaa waa xiriirka ka dhexeeya? dhakhtarka markuu kaniini ama cirbad qof siinaayo, nidaamka caafimaadka waxa waaye bukaankaas in loo sharaxo side effectiga daawada ee leedahay. side effectiga daawada ee leedahay waxaa ka mid ah number 1 miisaankaaga oo kordha iyo wejigaaga, gacmahaaga, lugahaaga, calooshaada oo bararaan. marka haddaad dhahdid ka waran kaniinigan aan waxaa u isticmaalaa side effectigan ama dhibaatooyinkan uu leeyahay aan rabaabaani. kuwa kale haddaa kuu raaciyo waxaa arki doontaa inaad develop garayn doontid ama ay kugu dhici karaan cudurro inta noloshaada ka dhiman aa la noolaanaysa. waxaa ka mid ah cadaadiska dhiigaaga oo kor u kaca, inay kugu dhacdo dhiigkar, heerka sokortaada dhiigoo kor u kaca, sokor qaba aa noqotid, lafahaaga oo daciifa, jaranjaro yar haddaa kasoo dhacdid lafahaaga qayb ka mid ah inay jabaana u nuglaanay. mental disorders inaad develop garaysid sida depression, insomnia iyo caradaada dhawaata, waxyaabo badan oo mental ahaan la xiriira. haddii daawooyinkan intaas aa u isticmaashid intaan kala iska indhatirta aad dhahdid ka waran miisaanka bis inaad ku kordhiyaa rabaa, waa isticmaashaa maanoo daawada markaada go-aanaa qaadatay inaad joojisid koos dhibaatooyinka uu leeyahay aragtay. bararka wejigan iyo miisaankan iyo wax kusii hoos duugan waxaa waaye in xubnahaaga kale jirka uu baabi'iyo, sida lafihii, karkaa kugu dhaca, sokorta kugu dhaca. sokorta keliya inta xubnood ay baabi'inayso waa garan kartaa, wadnaha, maskaxda, keliyaha meelay dhaafayso ma jirto. go-aanaa qaadatay inaad joojisada aragtaa, waxaa kugula talinaa dhihin ani hal mar isla maanta go-aan qaatay daawadan waa joojinaa ha dhihin. kow dhakhtar la xiriiray, waxaa u sheegay warbixintaada kooban in daawadan aa qaadisid aa rabtid inaad iska joojisid. dhakhtar la-aan daawada haddaad joojisid dhibaatooyin fara badan ee leedahay. waxaa ii ballan qaadaa in adiga iyo saaxiibada aad qaanid oo kaniinigan isticmaalaa si noloshooda aa u badbaadisid. u sheergaray ama adi u sharax. muhiimadda waxa waaye cilmiga hadda adi aa ogaatid uga faa'iiday dadka kale. insha allah waxaan rajaynayaa inaad wax badan iga faa'iidi doontaa.